إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد ابتهل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلمدني شناد السلسلة تحانيه أنا قلت لك الله طبعاً كدنبه طبعاً كان هران لهاي بشهد الحج، وانا قيبت اللبات احكامت أضحية، وان كسو قادن دونو لبا مسألة. شروط أضحية لقرب مركو أضحية قليا محايتها شروط ديسو ومركا كوبات. مركا اللبات هلبك أضحية السالة دهيا. سرعة كوبات الشروط أضحية لقد دونا ياي وحا أقوم مهمسان صدح شردي با أقوم مهمسان شروط لقد دونا ياي أضحية دونا يالط. شرطية كوبات وهنا يتهي حولها النول إلا دقضو لو جيل أما عري وحان صدح داهين أضحية مقالان. وحنا لو عسكري عادي إلهي سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام في سورة الأنعام مركا لغو فسري من الإبل 2 ومن البقر 2. لبو لدقيا لبودا يجيل لبوه لدقيا لبودا يعرم على الشيء يانا ويوحي أحكامتا بدني حجيجا إيو زكاتك إيو كواجبان. إمام النووي رحمة الله علماء قاركود حكسو قوري إن هذه مسألة إجماع لسكور رحسنية. ابن رشد في بداية المجتهد سلو كلامكم سو قوري وحكو داري من إلى حسن بن صالح يا وحي حيوانك كليه لبكي صلى عنانا ويقلي كلام. marka jamaahir ahli ilmi waxay u badan yihiin ficilkii nabiga iyo daahirka ayadana ka muuqata in xoolaha udxiyada noqonayay ay noqdaan xoolahan saddexda ee looda iyo geela iyo ariga, oo waxa kale hilbahoodu xalaasha yahay ama badda ku jira oo laga soo qabanayo ama bariga jooga ama ha noqdaan kuwa duula ama kuwa dhulka socda ha noqdaane inaanay udxiyo galaynin. saa darteed waxaan leenahay shardiga koobaad waa inuu yahay saddexdaa xoolaha mid ka mida looda, geela ama ariga. shardiga labaad waa inuu ceebka saliim yahay. ceebta uu saliimta ka noqonayo ama ha noqoto inta daliilku sheegay ama wixii lamida ama kaba sii daran ha noqdaan. أصلنا وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه إمام أحمد أصحاب السنن كوي ورينيين ويجي أثر أضحية مقالان. العوراء البين عوارها مدة إلا أما إلا عداد كله ووحي رهين أي موقته وإلا أنت يدو أي موقته أما العداد كدو موقته. وحيد والأرجاء البين ضلعها مدى لطيسا نافضة أي نافنمدة عده نافنمو وين ومقتل. والمريضة التي البين مرضها مدى الشرن عذر كذو ومقضين الشرن والعجفة التي لا تنقي
iyo midda caatada een dhuuxba lahayn nafta ee laf iyo haragga ah afartaas Imaamu Nawawi wuxuu leeyahay waa ijmaac ceebahaa leh in aynan gudaynin udxiyada wixii la mida ama kaba sii daran haddii la yidhi middii isha la'ayd midda labadaba la'a ka war haddii la yidhi middii dhutinaysay midda curyaanka ee fadhida ka war haddii la yidhi middii caatada ahayd midda caatanimo kiciba la'a ka war waxyaabaha saas oo kaleeta ah filjumla waxay soo gelayaan qawlahu tacaala walaa tayamamu alkhabiitha minhu tunfiquuna walastum biaakhidiihi ilaa an tughmiduu fiih xoolihiinna markaad ilaahay dartii wax u bixinaysaan ha ka soo xulina inta xun eed nacdeen oo haddii maanta la idin siiyo aydan qaadateen indha isku qabad mooyeen si kale aydan ku qaadateen indha isku qabasho inaad ku qaadan lahaydeen indha isku qabashadaa labada way sababi karaan ama saddex andho baahi aayadaa ku haysa waxaanna laakiin wax kuu dhaama ma haysid wax la'aantu kuu dhaama inaad u qaadato inaad cabsi u qaadato dee nin madaxiya nin ay ka soo jeedo ama adigaba dhib ka weyn haddaad diiddaan buu kaa soo gaaraa iska qaada intii dhib kaa soo gaari lahaa dhahdo inaad xishood u qaadato qofaad xurmaynaysay intuu ku siiye aad diidi kari weydo waa sababaha ka midka laakiin ilaa an tughmiduu fiih neef caato oo laf iyo haraga markaad ilaahay dartii baan udxiyo u gowrici leedahay maxaa laga cuni saa darteed saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay samayn jireen horay intay u sii gataan baa neefka la qoolin jiro oo la cayirin jiray si xataa markay la qala masaakiintu waxooga helaan midaan laftiisa wax laga xagtaba lahaynoo caata ah iyo mid dhutiraysoo naafa ah oo xoolihiiba gaarila oo intuu waraabo meelaha ku dili lahaa isdhaafi aad leedahay iyo mid ila cudurradan la sheegay wixii la mid ah iyo wixii kaba sii daran iyagana udxiyada geli maayaan qiyaas musaawiye awlaa waxay dhahan weye wax mid lamida iyo mid kasii mudanba shardiga saddexaad waa inay da'deedii ay ku gelaysay udxiyada gaadho xooluhu udxiyada da' bay ku galaan da'daa wixii ka yar udxiya ma galo geela iyo lo'da iyo aricadka ama riyaha la yidhaahday hal shardi bay wada leeyihiin laakiin markii hoos hal loo dabaqaay ay kala duwan yihiin waxaa la leeyahay musinnatan ama thaniyan waa inuu yahay thaniyan maxaa looga jeedaa ilkihii horena way dhaceen kuwii dambena way soo baxeen neef ilka ritay ilkihii dambena soo baxeen baa athaniyu la yidhaahdaa geela 5 jir buu kala soo ilka baxaa markay 5 sano u dhammaato buu athaniyu noqdaa looduna 2 markay u dhammaatay noqotaa aricadka riyahana sanad markuu u dhammaaday noqdaan saddexdaasi waa inay athaniyu noqdaan waxaa soo haray ariga idaha isna sidaa inuu noqdaa fiican laakiin haddii la waayo mid ilkihii ritay welina aanay u soo bixin oo aljadac la yidhaahdo ama aljadaca la yidhaahdo oo 6 bilood jira baa gudaya intaasuu nabigu alai sala slam udxiyada markuu ka hadlaya ku sheegayoo haddii jaabir bu wuxuu ku yidhi ha gowricina ilaa musinnatan mid ilka la soo baxday maahane wax kale ha gowricina ilaa an yacsura calaykum inayd ku adkaato helitaankeediiba dhib idinku noqda maahane fatadbaxuu jadacatan min adda'ni marka aad gowracdaan mid ilka ridatay oo ida ah fi saxiixi muslim wey xadiidka jaabir xadiidka jaabir wuxuu xadeeyey da'da ay tahay inayna ka yaraanin lo geel iyo ari intaba saa darteed waxaanu leeyahay shardigiisu waa in uu gaaraa da'dii laga rabay oo ah inuu la soo ilka baxay markay dhaceen kadib looda iyo geela
iyo ari cadka riyaha ah. geelu waa 5 sano markay dhammaato, looduna waa markii ay dhammaato 2 sano, riyuhuna waa markay sanad dhammaadaan. iduhu jadaacadu waa 6 bilood markay dhammaato ilka ritay usan weli la soo bixin. intaas waa masalada koobaad ee shuruud udxiyada ah. masalada labaad ee kelmadeen aan ku gabagabeynayna ugu dambaysay, hilibka udxiyada maxaa lagu samaynayaa? hilibka udxiyada waxna waa laga cuni karaa. waxaa fiican in loo qaybiya 3 qayb cunto aad ka dhigato, qayb aad dhigato, qaybna aad cunto, qaybna aad dadka siiso. fakuluu minha waatcimu lbaa'isa alfaqiir baa ilaah yidhi, wax ka cuna qofka dhibaataysan ee baahanna siiya. nabiguna alayhi salaam waxaa ka sugan inuu yidhi xadiiskiisa alabta lagu fi saxiixayn bukhaari muslim, kuluu waatcimuu waddakhiru, cuna oo dadkana wax ka siiya, waxaa ka dhigta. saas darteed hilibku 3 inaad ka dhigtaa fiican. haddaad wada bixiso dad wada siiso waa bannaan tahay. haddii meesha waa xaafadda lagu badan yahay oo lagu qararamsado lagu kala tagana dhib ma laha. haddaad wax kaaga soo harana wax waad ka dhigan kartaa. dad inaad wax ka siisa baahan iyo masaakiintana waa loo baahan yahay. intaasna waxaan kusoo gabagabaynaynaa kelmadeennii 5aad ee xalqadahan iyo silsilada taxanahan ugu talagalay 10kan hore bisha dilxija. intaan kelmadda 6aad oo isla axkaamta udxiyada aan kusoo ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت